السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام السلام كان يديكم سلام يا سود وهذا ميرو البتود عالم كجوجتان مركز كوباد يا مركز لباد يا مركز الدحاد بوحد يديكم سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سيشير قرية قدبية جارسية بيجز كلا جارسية. maalmahan dagaalkaygii waa yara yaraaday shaqada busy u ahayd laakiin hadda ii bilaabanaysa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo qolyihii ahaa nabadiidka ee isbaarada iyo hanjawaadda magaranaysaa ku noolaa Facebook bay inaga yara qabsadeen waana wareeriyeen calanka buluuga Soomaaliyeed cawaale horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu ka dhaxeeyaa inta aanan galin qodobada aan soo qoray horta Facebook waan u mahad celinayaa ilaahaygi Facebook inoo furay ilaahaygi ma garanaysaa Facebook live inoo sameeyay aad baan ugu mahad celinayaa إلهي بقى مهد إسكال كوبات واجه هرت وحاجر جري أو أي دتك الصوماليات كوري رينجرين إذا عضو أي مقارنة ساي إن أيجو أي كنترولان إذا عضها سي ضد جر أو كوبن أو ضدك كعيا أو ضدك إسكودرو يا كهل جري BBC يا Voice of America أو لبضبا مجا الصوماليات اللي ريجستر جري marka dawladda Mareykanka BBC dawladda Mareykanka markay leedahay Voice of America waa tabarucaad Soomaali lagu talgalay qolo yar oo kooban ayaa markaasi maamulayso ayaga professorka sameynayo ayaga ninka committee-tiisaha sameynayo ayaga sameynayo title-ka magaranaysaa qofkaas lagu yiri waa inay jecel yihiin oo dawladnimada lagu burinayo dawladda Mareykanka waxay u sheegayaan in idaacadan ay ku hadasho magaca Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inay u adeegto BBC-na la mid weeye dawladda Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda warfaafinta waxa loo sheegay inay qaybta Soomaaligu ay u taagan tahay Soomaalinimo Soomaalida ay caawiso laakiin xaqiiqdu sidaas ma aha waxay sii daayaan wax ayagu ay jecel yihiin waxay war u arkaan mar walbeeto in degdeg qaraxa dhacay degdeg dada isdilay degdeg qabiil hebel baa duulay iyo dagaal baa barta ka socdo intaas ayaga ay ku macaashaan ayadoo sidaa ku jirno oo dad badan anigaan ka mid ahay idinkaad ka mid tihiin waa inta wanaag jecel yaa ciil baan qaban jiray waxaan isweydiin jirnay annagoo ama dhageysanayna idaacadahaasi ama idaacadihii maxalliga ahaa ee qadka cagaaran ka sheekeyn jiray waxaan dhihi jirnay war waay dadkan dad Soomaali weeye ordaar cali salaam ya soo dhawgaas aad iyo aad dadkan dad Soomaali ah waay dadkan Soomaalinimada iyo dalkooda iyo wadanimadooda bay ka sheekeeyaan baan isweydiin jirnay nasiib wanaag waxaa dhacday in website-yo ay soo baxeen hadda ka hor website-yadii marka waxa weeye milyan qabiil walba tuulo walba xaafad walba waxay furatay ma garanaysaa website bas ka furatay waabayn heesteen waa laga soo gudbay dheer cali soo wuxuu dhahay duqbilow borow ma siyaasadda aad iyo aad anigu cowboy baan aad iyo aad adigu ariga dhaqataa waan u maleynayaa anigu loolay baan ahay wadamada Mareykanka joogna Yurubiyaanka looleyda waxa weeye waa ka aqli badan yihiin dadka magaalada joogo iyo dadka ma garanaysaa beeralayda ama dadka xadhardo dhimala soo dhaw uga saadiyaad kacdoonkaaga waan u jeedaa iyo halganka ku jirtid waana dareemi karaa meesha xanaaqa iyo arinta ay ka timid inkasta oo xaaladdu ay deganeed maalmo dhaxdaase marka inta aanan barnaamijka galin daahiro ku salaamaya soo dhawgaas yaa waxa inoo furmay Facebook kilibiyar ba soo gelin jirnay kadib live baa inoo furmay live kii nin walba aqligiisu hadlay qaar hadda
dumar waxaa arkaysaa isqaawinayo waxaa arkaysaa mid waalan oo dadka caayayo mid waxaa arkaysaa iska talaaba dheer intuu kasoo dhargay ama biir iyo balaayo soo cabay ma garanaysaa tusbaxyo iyo dhowrkiyaalo wata ku dhahaya daawada qabiil ma igu daawataan ku dhahayo waxaa arkaysaa daa'ir cali show oo dhahaya hiraabow kaca oo ma garanaysaa qabiil iyo reerkiisa kicinaya oo ma garanaysaa siyaasadda raba inuu ka dhigo hiraab keli iyo abgaal iyo abargidar kelina ay tahay waxaa soo galo ugaasyada oo duqbilow ah ninka garta bartanka ku dhufto calanka buluuga intaad aragteen ay daawateen ninka barmotor gareeyaan ahay ma garanaysaa calankaas Soomaaliyeed taraagiisa gaarigiisa u dhex saaran yahay isku soo duub marka waa ka af Soomaali badinay waana ka raynay idaacadihii waa ka raynay okay facebookii yaa dagaal ka bilowday marka dagaal aan wanaagsanayn oon qurux badnayn uu hadda hogaaminaya damar cali show hogaaminaya uu leeyahay abgaal kaca habar gidiray kaca dagaalama uu leeyahay oo ma garanaysaa aad iyo aad isku soo duub waxaanahay muwaadinka Soomaaliyeed dawladda qabiil kuma taageero reer ahaanna kuma taageero waxaanahay muwaadinka Soomaaliyeed dawladdiisa iyo dalkiisa iyo calankiisa jecel baanahay ka xumaado kana dhiidhiyo in mar walba ma garanaysaa daaro wagalaya let me finish topican waxaan arintaas ku jira aan dhameeyo wax hariis mar walba dawladdiisa garab taagan anigu beel ahaan qabiil ahaan duqbilow dadba badhaa dawladda qabiil bad ku taageertaa reer ku taageertaa anigu duqbilow ahaan waxa ka dhashay beesha absame beesha ogaadeen ma ka dhashay beesha aan ka dhashay waagi qalbi dhagax laga xireysay mucaarad u noqdeen duurgal u noqdeen ilaa hadda wax dawlad muxaafadad ma jiro isoo duub waxaan ahay nin haddii aan qabiil ama wax ku taageeray ama qabiil wax ku barmotor garanayo maalintii qalbi dhagax la dhiibay aniga madax badan ma ka shakaysanoo ku yiri dad badanna way weydiin waxaan ku yiri anigu muwaadin aqligiisa iyo maskaxdiisa iyo oorahdiisa gudbistaanay waxaan ku yiri xildhibaan xidig wasiirka wasiir ku-xigeenka waxbarashada Soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo cirka dhulka Soomaaliya kooytoon xildhibaan beesha absame leeyihiin ba ku yiri kooytoonka xildhibaan iyo dhowrka agaasime maxay ma garanaysaa isu casili weeyeen oo u dhihi waayeen maadaama ma dhihin baan ku yiri marka anigu fikirkayga hadlaa beesha ogaadeen markaas u gardhiganay qalbidhax waa ka xumahay baan ku yiri laakiin calankayga iyo dawladdeeda meel loogama tagi karaan ku yiri aad iyo daayro telefoonka inaadero dhawac ka dhiga hadallo badan baan ku hay waan ku jeedaa ku soo qabanaya sida caadiga live u soo gashid ka dhiga aad iyo waa ku soo qabanaya aad iyo aad ii kaadii wax yar بدل أدرى ماشي هذه نتك ماشي هذه ريد نتك تبع كديك التلفون يسوق مركا دبع كديك يسوق هذه أوكي isoo dub adiga waxaan ku yiri kooy tobanka xildhibaan iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiirada beesha absamo idii ku jiro federaalka waxay ahayd ba ku yiri hadii ama qabiil wax loo mucaarada ama qabiil ay jirto ama xaalad jirto inaad ma garanaysaa aad ma garanaysaa waa dareemaad inaad kuwidaan shaqada xilka tirisaan isaga dhaqaaqdaan anyways hadii wax ka gar helay isku soo duub ka soco إيه هذا حلو بالأقسام معاي صح وهذا هو سيور waxaan dhageystay hees oo dhahayo siyaasad muufa maaha wallahi dagoona maaha hadda waxaan ku dhahaa duqbilow saaxiibow nin aad qeyraataa siyaasadda lo buurow maaha lo buuray maaha ما شاء الله شو دوينيا marka koobaad
waa iska qodla ani mogta marka qaar aniga markii kabul farax ayaan ku dhigaysan jiray mogta yani hadda kuma baran mogta dadka hadda ku barteen aniga adoo naag hindiya la sheekaysato oo naag hindiya ma taqaanaa ingiriiska joog la samaysa ayaan ku bartay mogta sax waagiyan youtube-ka waagu soo baxuu ahaa hal nin baa iga horreeyay youtube account furtay cabdisalaan wuxuu ahaa cabdisalaan yarkii wasiirka wasaaradda ra'iisul wasaaraha afyeerkiisa mar noqday sheekh maxamed warsagaliga cabdisalaacaato bartamaha cabdisalaana iga horreeyay oo furtay youtube account ninkii ka labaad ee ku xigeen ahaa 2007 kii bay ahayd markaa account furtay inaad horta soo dhawo aad baa ugu faraxsanahay andali waa ka hela sheekooyinkaasaan ku taxnaa jiray ma fahamtay sax waxaan ku sheegaani horta waxbaan ku sheegayaa horta niyo ilaahay dadna waa ku siiyey deeqna waa ku siiyey caafimaadna ku siiyey sax إلهي نقول لك السؤال إن شكرتم لأزيدنكم ولكن كفرتم إن عذاب الشديد هدي أدو إلهي دد يدق يا عافمات أنت بكسيون إنك سأقول حول عطاي أكفر حضو أبي يهوي عنقود كبت لود دلايو وكفر حضو إن موادنا أو صوماليا ما تقانا أو إثيوبيا لود ديبايو وما أنا قلب لا يحلي وها صوغة النوادي النول ضر هذنا مركي دك الدمية مساكين تهبد لياشا واحد تري إلهي كومس المدينة واحد تري نوادي النول واحد كلو تري داهر أسو إيو عبد القادر بوس إيو بلوان أيا مرايكن كوليس كأرجحسد كدريا أو مركين كدريا ليس كأرجحسد مرايكن كم أنا قيرة ولا رو ما يفيري أرد سؤال ودير وكوقة أنا سؤالك كوقة بقول سولو ما شاء الله مركبات أرد ليس كلا كدريا ليس أرجحسد مع نن جورناليستات هاي أنا ولا صعد الصحافة سؤال سيدا يقول لك تي وأرجحش إيو مقرر ساي هولا نوع عاصمة هذا لا سعودي أرنتن أن مركان أنا كان لبالله بيتو طريق ذا نسوشين وحال يجري هذا ليس أنا هذا هرت عدنت وكوس عطا وبارتا في عبا كوس عطا ما شاء الله وأنا كسي درت هذا وأوجي ذا ريبل وكعة وحكي يا هرت سودو مركون وحال يجري هذا سبويل استبال ده ما قرأت ما أرجحش ما they know you وكوجي ذا ظاهر إنه واقع عصب أدميريا أرانجريني شيء هولند دقنتها عروتها دح جوكتين هالكان نبض قبا قوري هيسنين لكن إلى هذا الشيء أو قرر ساي وح analyze قريشيد وكل شيء analyze قريس كوح analyze قريشيد قضبة معناها هذا كسو قري وأنا عدان دونتا إن شاء الله دلو ما المهنة واتكسي درت هل سؤال بكودين يا وحيه دينا أديد مقدشة أديد يكسمايو سيدا نو شيكتي مدلح بلودنا إلى جوجي سيد أفريقيا لحدي بلود أيضا أنا اللي جار حتى لو بلود جار دي بقص بالنقطي محاسب فتاة سود دجي أرتاس هو أسكب بريفت لكن فيدي صومالي ذو حاجة كشك يسموك تاي أنا أرتا مقدشة واتجي شا المهم يقول جوا كسوك هايستي ما شاء الله حدو إلى هاي إلى هذو نيجي راس كلا عن جابة إيه إتوجو جونيس أو متقنا أو لك أكتر كيهين مجد لكن حلاقة يابا نم بقول هالله ورمودوجا أيه سجارة على سجارة دوي كعرة تبقى مركاسي بو بقول هالله نواليه مركاسو يابا إلا سجارة أنا جاب أقول اسمه الهنول شا أنا استيت طبعا كبشة أيام بحياة وكاستيك كي مرتا فيري ودوف التصبح سجارة طبعا كبشة بحياة waxaan tagayaa ilaahay kuma soo madiyay Istanbul Ankara Istanbul aan ku soo laabanaya kadib haduu ilaahay ilaa Muqdisho aan tagayaa waxaan ka bedelinayaa garoonka diyaarad meel leeyahay gaalkacay iyo Gilisoor u socda oo ku soo caanacabaya kadib asxaaba u gudbaya tigidkayga waa kaasa roolkiisa aan ku siiyo numberkii noo qari sa ma caadi numberka taa caadi cid laga baqayo oo daahir ka baqaahay biliga hooyanooda dhigtay meel aadi ma iyo dhuma jiray إنك دايرفو كبقية ولا فوين ولا نديره منو ما كل شيء يا كله ماركتا نبرة قدنا إيه مجد واحد حينا ماركتا أكاسة كل وجودة واحد قرنا أيه هاي لا تمجران بريجي هاي النوران عن ملاك كده بيمجرس إلى الجري حتى إذا كبقية إذا محيها متكلم كل شيء يا ما شاء الله هرت إسبراوي وحاربة سؤال سياسة ليه صوت هذا فيري أنا قال نيو
adigana waxa laga yaabaa inaan buruug soo takhasusto anina security ana marka we have a different options aniga mar kasta haddaan holan joogo iyo haddaan joogo xamar iyo haddaan nairobi joogo intaba waxaan ku socdaa wax la security ayaan ku socdaa security ayaan ku socdaa advice iskama socdo waana adduunka wax international oo ka jira qofka in uu ku socdo qaab farsamaysan habkaan aniga u shaqaynayay iyo meelahan maraya iyo ciidan ku xiranahay kullina markasta oo tookaya ma aha kaliya inaan iska ilaalinayo marka kuwa nabar naxdin inaan iska ilaalinayo ma aha laakiin waxa weeye meesha alqaa'ida maraysa daacisha maraya ma fahamtay okay waxa weeye waxaan rabaa daaro raal dhaqo ada kood adduunku waa tiro badan yahay afiiri su'aal laakiin waxbaan ku sheegayaa adreyso waxbaan ku sheegayaa adiga waxaan kula talaa hal xabaan kula talaa su'aal baa ku qabaa talada markaan gabagabeynayna rabaa inaan ku kala baxo haye labada maal waa ku daawada aad ba kula socday kowda istalay aniga program baan soo qoray la yiraahdo really talk waxaan su'aalo weydiinay shacab badan oo Soomaaliyeed oo beelaha Soomaaliyeed kamid dooda maalmaha socoto campaign culus ba hadda ku jirta ilaa 18 kana waxaad rajaynaysaa inaad mudaharaadyo qabataan okay inta badan maalin la watana su'aasha inna saaxiibadahayna waa weydiiyay marka daahir oo hadlaysid aniga social iyo adiga iyo dhalinyaro badan social media activist aanay daahir marka adiga hadlaysid hadalka dooda qabiilka kama leexatid si toos ah carab ugu dhufataa ninka badan ma tiid ma sha Allah okay haddii hadallada hadda sida u dhigaysaan aad tiraahdaan farmaajo waa mareexaan waa daarood ciidankii hiraaba magaalada soo galay ka saara magaalada farmaajaha laga saaro iyo dadka la socdo oo farmaajo macnaha intay dad idin dhageystaan oo maleeshiyaad idin dhageystaan oo hubka la qaato oo dagaal lagu qaado oo farmaajo iyo qabiilkiisa meesha laga soo saaro Soomaali weyn maxay ku dambeynaysaa Soomaali weyn nin handicap oo bufaalo ka ah baakinle ku qaldantay Soomaalina caalamka la yaabo markii ninka madaxweyne u doorteen waa la yaabo Soomaali wax ma tihiin leeyahay Nairobi aan ku arkay dawladsiintu waxay dhaheen Soomaali hanoo amaanin daahir maxaa dhacay kuwa farmaajo madaxweyne u doortay fiican oo aqal la garashada ma ahay dad smart ah saakay dhiganina marka aniga waxaan isleeyahay Soomaali barwaaqo iyo horumar ay gaaraysa qofkaasi gurigiisa isaga xiran dhahayo wadadii cadeyd iskale kaas wax qawmayo cidna u qawmayo Soomaalina barwaaqo dambaysa Soomaali ka horna waa la shubi jiray meel fiican iyadoo marayso iska yimid baakiina soo shaqaysanaya marka Soomaali farmaajo iyo nin yaro been sheego maalin walba la fiiri waxa aad taageeraysa la xishoonin ra'iisul wasaare wuxuu leeyahay mushaar ciidan nagu leh ma jirto ayuu leeyahay ra'iisul wasaare qaran sheeganayo ninka madaxweynaha ah oo soo magacaabay isaga ka dhigtay ra'iisul wasaaraha adoo mahadsan daahir dhageyso waa galay ninkii uu dhayaa 4 bilan ugu leeyahay wuxuu leeyahay 100 kuna ganacsada siinay ganacsada wuxuu leeyahay hal shin lama siin waxa saasay beenta ku mataqaana ay u tahay dhaqanka ayaa taageeraysa oo dadka Soomaaliyeed aad u cambaaraynaysa dhageyso waa tagayda waxaan rabaa dood macnaha dhaliisha dawladda waa sheegaynaa laba su'aal saddex su'aal ba ku qaba oo serious magarat aad u adag su'aasha hadda ku weydiiyo waxa ku yiri marka daarood iyo madaxweyne farmaajo aad qabiil ahaan u kicishaan maleeshiyaad aad ka soo saartaan Muqdisho oo ciidanka sida hadalka afka aad ku dhufataan beesha hiraab ciidankeedii maleeshiyaadkeedii waa kaaraan qabsaday meel hebel bi joogan ka saara qabsada magaalada leedihiin daarood iyo farmaajo laga soo saaray magaalada waxa ku yiri Soomaali weyn maxaa u dambeeyay baraaro iyo barwaaqa tiri okay wax arintan oo kale waxay dhacday 1991 oo Maxamed Siyaad Barre iyo ciidankiisii rejiimkii meesha markaa ka talinayay ee jabhadda USC ay ka saartay kadibna qabiil ahaan iyo reer ahaan iyo waxa bilowday ethnic iyo argoosi beesha daarood way ka soo baxday Muqdisho heerkii ay gaartay waan la soconay waxay noqotay the most dangerous city in the world ayada oo hal qabiil kali ku har marka ayada waa beesha hiraab iyo murursado marka idin la deganaa qad cagaaran baa la kala dhigtay kadib Soomaaliba hadda soo noqotay daarood iyo farmaajo iyo cid walba iyo Soomaali weyn baa dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho waa dhisma ku bilowday dastuur baa la sameystay waxyaabo la isugu yimid okay beesha hawiye dhowr madaxweynaha soo maray sanadihii loogu talagalay ee mandate-ka ahaa waxa weeye waqtigoodii bay ku dhameystay nin walbana markii sanadii u dhamaadeen buu wareejiyay okay su'aashan dib ugu noqonaya waana fahmay dhaliishada waan ku sii doonaa waana geli doonaa waxaan ku sheegi doonaa qaabka iyo reasonkan u taagan marka daarood iyo madaxweyne farmaajo intii ciidanka hadda aad kicinaysaan beesha hiraab u dhalatay
ay dagaal qaadaan qoryihii la soo baxaan meel laga soo saaro okay madaxda iyo siyaasiyiinta aad u dabacsantiin inay xilka qabtaan yay maamuleen Soomaali weynna maxaa u dambeyn doona mar labaad anigu niyo horta farmaajo waxaan u aqaanaa nin cadowga koowaad ee uu necab yahay daarood uu yahay cadowga ugu horreeya dadku necab yahay inay qabiilada daaroodka yihiin waxaan ani farmaajo u aqaanaa nin meeshii geela saynta kaga taala qabiilka daarood kaga yaallo waxaan u aqaanaa deegaan baa lagu abtirsadaa marka la yidhaahdo nin laba cabud waaq iyo geda ka diga Soomaaliyaan u aqaanaa ya ma fahamtay waxa weeye aniga qadiyadda ah daarood iyo hawiye qadiyadaas ani ma qabo waxaan u qabina ku sheegaya ma qabo waxaan qabaa kaliya halka fikir qabo waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay mingista farmaajo nin hawiye nacaybku uu ku fogaaday ogaadna nacaybku uu ku fogaaday ma jarteen nacaybku uu ku fogaaday loolan kula jira laakiin uu laaci waayay oo geeda ka jari waayay iska soo celiyeen ogaadeen ma jarteen ay caarso tumeen ma jarteen shalay markaan dagaalamaynay ani jabhada la socday ragga filmada duubayaan ahaa YouTube ku jira iyagoo ku qoray waa arkartaa waxa weeye nimankii la socday SDF ay ahaayeen ma jarteen ahaayeen nimankii la socday Axmed Cumar Jeesay ahaayeen oo ahaa SBN ay ogaadeen ahaayeen ya marka lagu orkacsanayo daaroodka ayaad adiga iyo isaga soo qaataane waxa weeye taariikhda dib u baar taariikhda inta qarni aan jirnay weligii nin habar gidin ogaadeen ma jiro nin ogaadeen weligii nin habar gidin ma jiro in history haddii la abtiriyana waxa la kuwana waa hawi kuwana waa daarood naytidad waxa leedahay wax daarood waxba ku sheegaya waxa wiye wax daarood sheegay balaha tiri fiiri waxaan ku sheegayaa adiga iyo asagaba waxaad rabteen inaad Jubaland dhibaataysaan أحمد ضاع داود صوتهم لوكي سوق حرستي ويلش أوجادين جربي سيين وحرتينا بدلان عرب شيسان وحلا إذا الدولار شد حتى كم سوق يجيك كتان وسيرم ما كان بدلان أوكي ليه هلا اللي كتبي وجرتين SDF واي SB نوس حريين ما حد إذا UFC نس حريصه أوف فقشته يو فرماجو لقى حريه مقدسة لقى حريه بلاد لقى حريه كل شيء لقى حريه جلمودو لقى حريه la tusiyo inay dadka minority ka yihiin dadka daarood waxaan ku soo gabagabeynaya halka waxaan ku soo gabagabeynaya hadduu farmaajo daarood jecel yahay ama daarood yahay nin ogaadeen oo absama ah oo laan dheera ah habasho uma dhiibeen haya anna uma riyaaqdeen hadda ogaadeen jecesha dhageyso marka su'aalaha waxaan aniga ku waaraya ku sheegaya waxaan aniga ku waarayo qofka ragga ah idaa jaa ajaluhum la yasqulu saa'atu wala yasdamun ila wala suuq dhimanaya saacadiisan loo dhaafimayo waxaan aniga ku waaraya ku jiifo waxa weeye qabiilka ugu weyn Soomaaliya ka dhashay la hawiye inta gobolan deegaan marka Soomaaliya tiriso madaxad qabsanaysa waxaan ku tiirsanahay qabiilka ugu weyn daarood ee la ogaadeen ama absame ee ku tiirsanahay okay halka bal wax yar halka ay wahay adoo raale inkastoo aan qabiilka aad waxaan ku tiirsanahay nimanka daraawiishta la yiraahdo ee daaroodka ugu xaniyaha badan ee Ingiriiska la dagaalay ee la dhul bahante ayaan ku tiirsanahay oo wiilkooda ah oo ila daahir cali suuraliillahu anhu ما هي الشخصية هذه أنت أمريكان هيستا أنا فرماجة كان نصيب بدني أنا كان نصيب بدني صارتوا أدوني يرو لانجابا أو عضيسن أو ريال كأجن نعب أياد مرتقنا على هاي النوادي النور فرماجة والك هولدي أياد كدير نحين مرك دقبلوا عن كل لها بالواحد هذا نكاني بحر واحد فيري فرماجة إسقى أمريكا ستيسنا ما كري أمريكا ستيسن واي أمريكا ما كري ودين بيكيالو أوجيه waxaan kugu soo koobay hadalka waxaan kugu soo koobay waxa laga sheekeynaya waa siyaasadda duqbilow boorow ma ahe waxa weeye doofaarka ficil la'aan loo cadaabaa ninka turkiisa la rabo in la gumeeyo ee dadkiisa dhiibay dhageyso shakhsiyaadka inaga daawana aad marti ii tahay koodhe marka aad hawiye oo laandheera adiga ka dhalatay hawiyanimo aad rabtid inaad midayshid معناها عقلية كوسينس إلى دارود وقاعدين ميل كتورتيد دلبهانتنا ميل كتورتيد مجرتين ميل كتورتيد مرحان ميل كتورتيد هذه يقولوا عاد ميد نقطتيد ولا عندنا هوية نقطتيد عقلية ده حقيقة إيمانيسا بل يفسروا sababtoo ah waxa weey ninka ogaadeenka ah wuxuu yaqaanaa aniga waxaan ahay iyo waxaan isku nahay iyo wax laga dhaxeeyo dhaqanka iyo taariikhda soo jireenka laga dhaxeeya ninka dhulbahantaha wuxuu yaqaanaa Soomaalinimo waxay Itoobiyaanka oo daba dhaqaan ninka dhulbahantaha wuxuu yaqaanaa daraawiish weeye aabbihiisa iyo awgiisa dalka u soo halgama calankan keenay ya laakiin kan maryaxaanka wuxuu yaqaanaa
godobtu xasuustaa galada ma xasuusto okay wuxuu yaqaanaa sida loo dulmiyo sida dadka loo dulmiyo ya ogaadeen ogta inay ku hayeen galgaduud ku hayeen ayay ku laayeen wardheer ay ku soo dhameeyeen shalay waxay dulmi dhigayeen waa ogay dalka ay ka dhigay ka sameeyeen ya waan taxala soo geli ayagoo habqana maanta farmaajo markii dadkii reer muqdisho ayagoo qabiil lahayn u banaan baxeen oo soo dhaweeyeen oo habeen maalin soo jeedeen ayuu ilmahoodii bajaaj ku shaqeysanayo shaqada u waayay ayuu dilaya tooganaya okay waa fahmay kulli gacan baraad ku qabanayna okay daahir waa mahad wada kenda of kullaan dhageyso waxa ku weydiinaa aqliyada waxaan ku weydiiyey adiga ahwiinimo ugu faanta ood midaysa hawiye oo mursade abgaal habargidir xawaadle gaal jecel you make them you proud and you make them one aqliyada ku siinaysa marka daaroodna inaad garanaysaa kala meel ku tuurtid kala xigsatid at the same time na aan leedahay inaad dareysiyaan rabaa daarood inuu minority uu ka yahay magaalada muqdisho farmaajana aan ka tuuro aqliyada bal iga dhaadhici waxaan rabaa taasaan rabaa inaan ogaado adoona xanaaqin ana kaa dhaadhicin neefka xoolaha marka la qasho duqbilow wuxuu leeyahay leg iyo baruur iyo uus buu leeyahay cad laga cunaa jira neefka ariga neefka geela cad laga cunaa jira lafta geela badha wax leedaa jirta ma fahamtay waxa weeye ninka tolweynaha ah kuma faanay inuu caloolay ka cunay neefka la qalay wuxuu ku faanayaa cadka ugu fiican inuu la baxay ma fahamtay marka waxa weeye daarood magacay wadaagaan taariikh bay leeyihiin halgan bay leeyihiin kuwana weligood sooma halgamay inay soomaali kala geeyaan mooye kuwana waxay caan ku yihiin halgan ma fahamtay marka inaan ku faanay inaan ogaadeen saa ugu tiirsanahay adeer waxaan u arkaa sharaf inaan ku faano dhulbahanta inaan saa ugu tiirsan waxaan u arkaa sharaf sababta taariikhay leeyihiin anuu hawiye ahaa oon aaminsan weliba inaan xataa si gooniya ogaadeenka aniga u dhashay anuu hawiye ah inay ogaadeenka dadkii iga dhow yihiin iga xigaan aan aaminsanahay sababta wixii galaana waa naqaanaa maalin dagaaltana dagaal weydiiya waa rag dagaalama gobonnimo markaa rag gobonnimo u dirra waay adig bal cunjuqaan meesha fadhiya iyo qoladoo ka dhashay jiha u bixi waxaan faan ahayn iyo daandaansi ka keen marka aniga uuska fiiri haydhihi caloolayda iyo maxaa u sintay ee kuruska iyo lafta geela badha maxaa u sintay ood u kala jeclaanaysaa aniga haygu qasbin okay dhageyso ma ku dhihi waa kala jeclaanaysaa waxaa laga yaabaa waa ka gudbaa dhinac kale kuugu dhigayaa qaab diblomaasi maaha inaan adiga shakhsiyan ku ataagayo maaha inaan magaranaysaa aniga ataagaysid we want to understand common ground ahaan isugu imaano okay marka anoo daaro Ismaaciil u dhashay aan midnimadayda mar walba ku faano qaato oon habar gidirna tuuro xawaadliya abgaalna aan soo dhawaysto gabadha hawiye iyo adiga oo magaranaysaa nin hawiye ama dadka hawiye what do they feel what do you think you guys feel and habar gidir anu taasaan aaminsanay fiiri aniga taasaan aaminsanay aniga aaminsanay waxa weeye history kuma arag nin hawiye ah oo nin hawiye oo qabiil Soomaaliyeed oo hawiye intuu tagay inta laga qabto cadalo ama ragceel laga qabto ama laga qabto guraceel ama laga qabto mataqaanin kale oo hawiye ah laga qabto cadaado ama laga qabto muqdisho in Ethiopian loo geeyo aniga wariga ma maqal hadii daaradnimo ay jirto wiilashii gabdhaha ogaadeen ay kuba absame ee xaqodirka ahi garow lagama soo qabteen farmaajina xamar kama dhiibeen marka isku daarood ma nihin kuwa ka isku daarood ma nihin anigu waxaan u heestaa nimanka leeyahay ogaadeenka ama absamaha nimanka leeyahay si gaar ahaan ogaadeenka iyo nimanka dhulbahantuhu inay daaroodka ka sareeyaan ayaga aaminsan aniga waxaan aniga aaminsanahay waxaan ka sheekeynaysa inay qiyaariga meesha kuma jiraan sababtoo ah waxaynu ku calaadaan dhaqan wanaagsan dhaqan Soomaaliyeed waxay joogaan Kenya dhulka gumaysatay degan Ethiopia joogaan dhulka gudaheena joogaan si wanaagsan oo Soomaalina garbax leh nool yihiin okay marka aniga hadda maanta haddaan baxo maanta oon tago laas caano oon tago eregaabo oon tago ilaahay kuma sameeyay buuhoodle waxa sida boqolka u noolaanaya Ethiopian kama baqayo isaaq inay soo weerara ka baqi mayo kama baqayo majeerteen inay soo aadaan dhulbahanta ku dhex noola haddaan tago afdheer iyo haddaan tago qabri dahar qorraxay tago iyo haddaan gaarso joogay haddaan Nairobi joogana waxay ag taagan waa wiil ogaadeen muka dhageyso waxa waa ku weydiina ma sha Allah ma santa waadink waa la marka daaradnimada ka sheekeynaysa ayaga iga sareeyay daaradka ka sheekeynaysa dhageyso ayaga iga weeyeen dhageyso wax kala ku arrin kala ku weydiinaya si kala ku weydiinaya daaroodku sida hawiyo kala weey
especially daaroodka hadda odayga daarood dadkan jarteenka mareexaanka iyo ogaadeenka sheegaysa hal aabaa dhalay waa odayga ilaa hadda qabrigiisa la hubo dhulka magaranaysaa ee Puntland ku aasan okay marka adigu hawiye aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay magaranaysaa inaad nin hawiyata proud ku tahay there is a million people oo ogaadeenka iyo dhulbahantaha aad sheegaysid iyo mareexaanka aaminsan inay daarood yihiin marka aad magaranaysaa daaroodnimadii iyo dadkii daaroodka ahaa kala qaadqaadid adiguna aad hawiye macnaha aad ku midaysanto aaminsan tahay inaad beel kale oo daarood ka mid duulaan ku qaadayso ogsoonow niyadaadana geli qaabka adoo hiraab ama hawiye aad mid u tambayagana mid u noqonayaan marnaba aqliyadaas u maray anigana inay ga dhaadhacmayso kuwana kale ay ka dhaadhacmayso waa ka gudbaynaa nagada qabiilka marka aad ugu fid maya qabiilka haddayna DNA u soo diyaargarow nin reeraha farmaajo ka dhashan ii keen adigana soo bax adigu waxaaba laga yaabaa inay hooyada torta hooyada yaa ku reebtiya aniga qabiilkayga aan weydiinaysa hooyada aabe suma maya adiga nin aad qeyr aad tahay yaa ku reebtiya anigu ree cabdulla iska dhal adiga yaa reebti ku anigana iska dhalan aan dhegeyso okay aan ku sheegay ma maqlaysaa jibkaaga dhacay su'aan jaarta kasta marka waxaan ku iri aftiyo dhegeyso aniga waxaan qabaa DNA la iska qaado haddii daaroodku saa ay ku wada dhasheen adeer ogaadeenku waxaan leeyahay daaroodnimo isaga baxa haddii laakiin qolo sheegata daaroodka ay jiraan oo ogaadeenka iyo ku haysta meesha iyo dhulbahantaha waxaan leeyahay Soomaali dhamaad iska sheegta la reality iska dulqaati in la soo gala jeegaantiina okay marka fiir waa DNA-da waa diyaarinayna daarood inaad diyaariyo waa ku qasbi waan dhegeysan 4 kun lagu daawada dhegeyso hawiyaha marka waa dad dhashay daaroodka laakiin dad dhashay maaha amal hadalkaaga soo ma fiiri hawiyaha waxa laga helayaa qolooyin badan oo abtisiinta bakriga DNA aan kala duwan oo jeegaanta xisbiga kamid ah daarood kale waxa laga helayaa qolooyin badan oo saas oo kale inta jeegaanta kamid oo iska mataqaana ogaadeenkaas in koos nolol iska rabiyo iska sheegta daarood hawiyuhuna qolo saas waa laga helayaa waa ka buuxaan ma fahamtay laakiin waxa loo dagaalamay adeer qadiyad weey ninka gobta aan isma qariyo gob xushma ku filan baa waa faham daahiro waa fahmay qadiyada u dagaalamaysan idinku hawiye waa inaad daarood marka adigu haddaad nin daarood tahay oo ogaadeen aad tahay waxa su'aal ku weydiinay maxaad maalin walba markay isqabtaan farmaajo iyo mataqaana Axmed Daacad Axmedooba mataqaana maalin kasta aad u haysa iyo ragiis fiiri wixii siyaasadda waxaan ku weydiinaa wuxuu ahaa wax ahlu qabiile iyo wixii siyaasadda waa different adiga waa adoo dhowr jeer ninkii ahaa Puntland galmudug isa jiray adoo ku dhagan baa ku arko oo dawladdii magaranaysaa noocyo badan oo kala duwan siyaasadda u falanqeynaya anaga hawiyaan aniga hadda markay sayaan Axmed Ducaale gel xafi markay sayaan iyo mataqaana iyo mingista farmaajo markay sayaan lagama yaabo inay xabso hadal qaado sababtoo ah doofaarka ficil aan loo cadaabaa labada marka siyaasadda adiga aad magaranaysaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninkii galmudug guuleed haysan jiray laba noo hawiye ku ahayn laba noo daarood bay nagada qabiilka waxaan rabaa su'aal kale ku weydiiyo oo dhinaca siyaasadda qusayso 1991 markaad magaalada Muqdisho soo gasheen idinku hawiye oo USC jabhadii wato wax platform ama wax road map oo dawladeed oo idin dajisnaa ma jiro magaaladu waa soo gasheen maxamed siyaad barro madaxweyne ahaa xukunkii baad ka tuurteen madaxtooyadii baad ka bursateen okay shacabkii Soomaaliyeed idinkoo markaa USC beel ahaana ay hawiye tahay intaad Soomaalidii soo celiseen oo sukeenteen dawlad laguma dhawaaqin oo dalkii lama qabsan adduunka caalamku waxaan ognahay jabhad ayadoo qabiile ama ayadoo urur intay dal qabsato inay dadka soo wada fariisiiso dadka isugu yeerto dawladnimo magaranaysa halka laga asaaso xisbi isu bedesho oo magaranaysa meesha barwaaqi baraar ka dhacdo hawiye markii uu midoobay ee USC uu la baxay ee siyaad barrana uu ruday ee magaalada soo gasheen magaaladii qaabka ay noqotay waa la soconaa wax road map oo idin dajisnaa ma lahayn wax platform oo idin dajisnaa ma lahayn magaaladii waa lagu kala yaacay waxaa loo kala baxay Cali Mahdi iyo Ciidi magaaladii qad cagaaran bal dhigtay waxaa dhacday in muddo sanooyin magaalada aad isku leenayseen idinkoo hal beele oo dadkii kala dhan ay ka baxeen okay the same thing was siyaasad weeyo su'aal siyaasiyiin ma ku weydiinaya the same thing bad maanta adoo daahiro social media activist aad oleynaysaa oo aad leedahay maleeshiyaadka beesha hiraab ama beesha hawiye galab magaalada qabsada magaalada ilaa haddana macnaha wax idin dajisan taariikhda horena waxay macnaha dareemayna inaadan waxba ka soo baran okay
waad leedihiin maanta farmaajo iyo daaroodka magaalada joogo adigoo daarood kala aniga aqliyadaas ma aaminsani inaan hawiye kala jeclaadon aniga waxaad adaa ka sheegaysaa anigu daarood kama hadal daarood gobaa ku jira anigu daarood kama hadale macnaha man adiga hadda inaad su'aal weydiinaysa adigu hadda ma su'aal ay weydiinaysaa soo qodbaynaysaa inaad question is a shot ya daahiro isub isku day dhageyso inaa yara dhageyso isku day haddaa iga soo dhexgashid waxa adna waa wareeraysaa aniguna hadalkiisi sax kuguma dhigayo pointiga ma garato هلك هدي يردنا دواقنا أدوي كهلا وأنا ويجا هلا بس ما شاء الله بروفيشنال لكن سؤال واحد صوما سؤال واحد كمان واي لكتر ما وحاول وحارب أنا صفي عوا وفات كوس إنه هيتكو جارة مرة مقرت مركب ما أنت واحد أولين إنسان ما أنت واحد ما أنت واحد أولين إنسان الذي حقي هوية مقن جبهة القلب مقالة برصة فرماجو inta la socotay la reerkana hadalka ugu horeeyay waxa ku jiray inay minority inaan ka tuso Soomaali okay maxaa idin diyaarsan markii aad daarood iyo Soomaalida ka soo saartaan iyo dawladda hadda dhisan ee lagu heshiiyay hawiye daarood ka heshiiyeen magaalada ka soo saartaan maxaa idin qorshaysan yaa rabtaa inaad maamushaan waayahay laba arrin baa ka saxaya horta hawiyuhu magaalada Muqdisho intay soo galeen ma qabsan way joogeen oo magaalaha hawiye Muqdisho taa waa ka saxaya horta marka hore هويه هو دولة جعليه كوي لو أتصني محمد سياد برا دورش إنه قبتك السواقين السجانة كفي للجنوبي السجانة علوم الصومال دمي السجانة وحجرت يهرج لسه هالجمي جلي سوفر ما جوكر هدو الدليل هلا والله كان صحيا بحوي ما أنت مقصود محمد سياد برا لقى ساري دارود واجوه مقالة مقدسه إلا حد نوي دقيه وأس الصور رعني أو محن من المنطقة اسمايو الله نحرسته مجاهد كجا محمد فرح عيدي قد بدي سيوه رئيس وكجيدي مركز اسماعيل لقبته حوري يمكن إن أوغادين الدلاهي والو الدليا ولي قد نمدعين دارودك وقومية إيه سادق ولي قد نمدعين حدنا دعي ما يصو إن وحلي هالدارود أي كشقيسو دارود نعيب وحلي إن كشقيسو مقال مقصود دعي ما يصو هرو مدعين لكن واحد عيسى كوبا أي أستانتا يعادة النقطي inay maalin walba godob dadkoodu u xambaariyaan inay markala qaxaan shalay hawiye waxa ka qaldamay aniga ku 993 qoray aqliga hawiye saada cali faqash xalay muqalif ku jaahidad shalay wixii qaldamay maanta naga qaldamayaan shalay wixii odayaasha qaldeena maanta la qaldimayo waxa weey waa kala baranay anagu kubi aan soo aruurinay inta xiriiqa qaxooti ka soo qaadnay aan dibjidinka ismaago sameeynaan uga caasiyoobay kubi shalay kibriyay ee mataqaana guusha iyo godogoda looga dilay gurceela maanta markale kibirsan weligii guushaan u lahayn sidaad gacmeeya inka daar gacmeeya hore uga gabiyay siciid gacmeeya ka gabiyay waa ognahay taariikhda waxa weey maanta waxaad ka sheekeynaysaa ma aha meeshu daarood kaga yaala saynta geel meeshu kaga taala saynta ayuu daarood kaga yaala farmaajo saynta waa saynti daarood waxa weey daaroodna isaga dhibaateeyay ninka qalbi dhagaxna isaga dhiibay maanta Kismaayo wuxuu dagaal la galay waad ogeyd uu ka adkaan waayay marka waxa suba salaaxa ah aad ka sheekaysan daarood meesha ma taalo dhalinyaradu soo wacday inay ku hadlaan waa laga yaabay ereyada laakiin waxa weeye hawiye waa tashanaya sidoo isaaq hargeysa ugu tashaday ayuu hawiye u tashanayaa sidoo mataqal majaateen ay garaway boosas ugu tashanayaa sidoo ogaadeen Kismaayo ugu tashanayaan sida raaxan weyn bay dhawo ugu tashanayaan qof kastaba deegaan dhul dhigiisa iska leh magaaladan cadaalad u baahan tahay ina canshuur la bixiyo oo leeyahay canshuurtu waa canshuur qaran ciidankii shabaab hortaagnaa ee u dhimanaya amniga sugaal waa ciidan qabiil qofka haashin la waa qaran dumis qabiilista ah la qaadamayo ninna reerkiisa laga maamulmayo ninna reerkiisa laga soo jeeymayo duqbilow inta weey su'aasha ugu dambeysay adiga aan ku weydiinay kuwa cilmi waxay ahayd in Soomaaliyeed Soomaalnima sheeganaysa Abdulkariim Sheekh Muuse qalbi dhagax xafidullah ayaa farmaajo dhiibay nin Soomaaliyeed tahay ما شاء الله بإثيوبيان كأمسند وكأركي مرنا كيان كأمسند تاسي أنا لحن كأي سالم مسرحي وحاول لك أبغى ده يتعبد إلى جو على كتب سته أنا أكو هيا إلى وحاول حرتان كيس لبض النظر وكدي دينا مقرت مركا هرق السعود ما يا مركا الحرها أنت اللي حرم أردوين المها يلود دين حبسي أيات تاجر ولي جاب تاجر أنا هذيك هالمالي بعبد تاجرني مالتها أنا مالتي أنا كو هيا على كأضوء تو فيديو جاهيا ودوبت هاي يعني أو أصلا كرباشي كتب في ودوبت هاي لكن هلا رنو كسر نبجت مالتي الحري سومالي ما نقاد أنا هذيك هاي
ما يتاس فيري أنا قد أغنك علينا وحوي أنا أمك مركا ما تدعالمين هدي قف أجنبي نوي ما قف كاسان سوتينا أديك السيد اللي ماي وقد أغن علينا هاي أو أحسن معلومات وحنكف عنه ما شاء الله سؤال أشياء كويدين وحوي أديك الشيخ موسى مركي حمل لوحي واحد أهيد برو إثيوبيان واحد جت من قصة فرماجة يغيرلاوي يحس سرقته ولي ku adkaysanay oo laf inay tahay argagixiso qalbiga nabiga argagixiso shalay wixii aad samaysay maanta ma dhahaysa shacab 4200 ayaa ku daawanay ilaahu toobo waa qaldamay shartolkayo Soomaaliya waa qaldamay ogaadeen waa qaldamay absamo waa qaldamay halayga raali ahaado ma leedahay ma dhahaysa oo laf waa mujaahidiin oo ma ahan argagixiso qalbiga argagixiso ma labaas ermay dhahay maanta dhageyso su'aal bay weydiisay ma iibahe iyo su'aashagii kala saar ma garat su'aasha aan ka jawaabo waxa aad jeceshaa ma ku dhahay because aniga waxa aan rabay imaada dhig ma garat su'aalihi aan ku weydiiyay waxaad uga jawaabtay sida adiga aad rabtid anigu sidaan rabay jawaabahooda haddaan kuu sheego ka adiga rabto uga jawaab waa gartay way ka xanaajinayaan daarood waa ma xanaajinayo adiga dadkaasad ku weeyay ala shacab ku weeyay mooyee dhageyso tidiga meedkeeda ha sidato ama ha aasata yeelkadeed waa adiga yeelka hal mid dhageyso hal mid sida adigu u aaminsan tahay inay hawiye mid yihiin oo walaalo yihiin oo wada dhasheen oo isugu hiilinayaan oo aad rabtaan maanta inaad muqdisho oo idinkii degantiin aad duulaan ugu qaadaan oo qabsataan yaa qabaylada kale Soomaaliya especially qabiilka maxuu beesha daarood kala qaad mare mareexaan ha ahaado jirteen ha ahaado ogaadeen waa hal xabo weey macnaha sida adiga niyadaada qalbiga ugu jirto يا ويلك دارون وآمن شيء هاي إنه أصوم جرتين وقاديره على كلا دحجل كلا قاد كر وميديا تاوا جواب تجعله ولا كذا جواب كرو حقيقة كتي وقادين كنا تعيشها من ريحان كنا توين مجرتين كنا صاحب التاج أريها وياها ما كلا قاد ما شاء الله هل هاي الجواب توكشينيا دولة الصومالية رئيسه كان تاجر وحوي وده تاجر إنه واجد فبراير لا دورت مدة صدق بلود هذا واس بدي شيء waxaan noqotay mucaaradka ugu cadcada dawladda Korea ma sha Allah aniga kama leexan maalin kama leexan dawladdi waa taageer waxyaabaha ku taageerayna waxa weeye dalka Soomaaliya muddo 30 sano burbur ku jira aniga adigu waxaan joognaa Yurub adigana waxa degantaa Holland anigana Mareykan bad deganaa waan shaqaysanayna awlaad baan dhalnaa aab baan nahay caruurtanada nolol fiican bay ku jira subaxii markay soo kacaan iskuulka bas baa inoo guriganaga hor yimaado baskii baan saarnaa waxbarasho fiican bay soo helaan ma la socotaa niyadaada ma gelisay markaan anagu dharagtanada ka tagno inay jiraan hooyooyin aabayaal Soomaaliyeed oo daahir iyo qabiilka markaa ka tagna daahir iyo dubulow la family la dhaqan la jinsiyad oo Soomaaliya ilaahay intuu ku beeray fursadda ari adigu aan helin oo dagaal sukeeye iyo qabiil intuu baabi'iyay uu dhameeyay caruurtoodana iskuul aadan okay أنا نرى كرهيشن أوكي لا دالا دعايو نرى المعلومات عروتو ذي الشيرية هذه أي نبض هلان وحنا نقول أميني أو نبض هلان أو الدولة دم هلان إنه أباه أنتو قارجع عن قاطو صوش قيستو ومجرد عروتي سهيل بإيجاي وحوله وسيكر ماشي أنا هذه عروتها فرجرك أو حقص صارن تامد وي وصوبت أن الدولة دم هذا يعلن كا الدولة دم ما تجرتو أنا مالن أقول لحن عروتي إذا مركان أركا وحنركا عروت الله يسوع دوبه فامين بكودعي يأبار بكودع ذا اللي أما مقدشة أما بيدبا أما كشماية أما جروي أما هرجيس الله يقصد دوبه أنا كان حيد داس واحد يجعل شيء إن الدولة تتغير أوكي قلبي نجح بالديبة يقول تري قلبي نجح مواد الصوماليات بوها مالتي الديبة هي مالتي اللقبتي أنا وكان لتقبله عجلة دي دوبنتها هلا رنو أديك أجعلي أما أورك هذا يشك أجعلين بدرته أو أهيد تقبلوا ما دام قفل الديبان بالدولة دي أما نبجي من الدولة واخل ضنت أنا ببلغ بكشة دولة شغالة كمية دولة محيط تقبلوا أجهر إيمان واي دولة واحد أجهر إيمان واي وأنا أقول راعين أورك هذا يشك يرجع كل السياسيين أنا أقول راعي وحاوي مروا الب هو يدا يعبها يضل كي أصيب بربري تصارع كلته هذا مركا أديك كان بين كل درتي هذه اللي يركلته أدبن جرى سائد ليا أنت نذا بدن كأنت وضو يوروب يا أمريكا جدا معنول بقف بعدينتو أما بمبا قرحه أما ضد مظاهرات أما وحبات كل عذا أما بتشلي مالو يتردنتي لما شهد علي هذا وحين لا تهاي شيكو كوس حنون كمد دريم كرنو صوبته علي أديك ما على بعض قف حنون سنة هو يكلا حنون سنة ويل كذا بنتي
ama hooyo iyo aabba kale duqbilow waa kugu diiday stop xanuunka in waa dareemaya daas waa usoo jeeda habeen maalin aniga xanuunka shalay ku dhacayay ragga mujaahidiinta dhegayso stop aniga adigaas hadlaysa aniga hadlin aniga xanuunka hooyada iyo aabbaha xanuunkay dareemayaan dhalay ilmaha lagu laynaya xamar ee mingistaha uu dhammaynayo ayaan dareemayaa shalay kuwa cabdi inay dhammaynayay iyo kuwii TPLF ay dhammaynayeen ee jeel ogaadeen lagu cadaabaya xanuunkaasaan dareemayay habeen iyo maalin waxaan u ooynayay oo qalbigayga u gubanayay wiilashii iyo gabdhaha ogaadeen ee amxaarada iyo tigreega ay laynayaan daahir cali ugaas haddii aad dareemaysa xanuunka waay maalin walba dowladdii hadda u timid ee loo yeglay dowladda akalaysa meesha dowlad ma taalo way taala meesha dowladda aw meesha taala wax walba daraja lagu gaaraa dhageysi ugaas wax walba daraja lagu gaaraya dowladdii ka bixin lahayd ee horumarka gaarsiin lahayd ee nabadgelyada u keen lahayd haddii adiga afkaaga aad ku duminaysid oo qabiil u isticmaalaysid how did you feel this pain se u darbeynka xanuunkaasoo kuma sii socon dhegayso ninka gabadha ku xigta da'da ku xigtay ee gabadha kaliya ee aabihii uu dhalay ay tahay idin farmaajo ninka hal gaari waayo isaga naagta qaba heshiisii waayo Soomaali xuqoomay waa nin tuuganimo iyo handikaabnimo iyo qabyaalad meel la fadhiya marka aniga iga sheekayn dowladkaas ka sugumayo fiiri ka dowlad ka sugumayo dadkuna way ogaadeen wuxuu yahay farmaajo qof maanta xiisu qabta male farmaajo waa qof marka anaga Allah u jiray hal balan bas la gal oo ay Ethiopian uusan noo keenin abdikii suuq buu soo dhiibay hadduu awoodi karana dadka dhan wuu dhiibi lahay hadda islaanta dil soo dhiibi lahaa marka niyo hayga dhigi waxaas qadiid hayga dhigin wax kala ka sheekaysana keen meeshaan dowlad ma taalo meesha day ninka haduu dowlad yahay muxuu kasbaa cashuur uga qaadi waay muxuu Jubbaland uga qaadi waay Puntland uga qaadi waay muxuu uga qaadi waay Somaliland maxaa ku koobay Muqdisho kaliya maxaa ka dhigay cashuur qaadi Muqdisho ciidanka maxaa ka dhigay ciidan qabiil yaa utumaysa garbaanka waalida ahayna camleynimada yaa utumaysa gulweynta yaa u gulwadeynaysa yaa qadaysa fiiri okay saxiibow siyaasadda ma dheer umii hadal baan waxaan rabaa saxiibow lo ina boorto oday oo fudud ka afuufta ee u taa shaqaas qabso hadaa shaqada qaban karin taraagaaga iska wado waxa siyaasadda waa laga sheekeynaa abu siyaasadda u baahan tahay faham fiiri point ma noqonayso duqbilow lo boorow su'aalaha ku weydiina waxaan rabaa su'aasha aan dib igu soo celisay inaad si fiican uga jawaabto because dubaran daawanayo waana sheekaysanayna hiidkani ku gaarin marka ay leedahay duqbilow boorow macnaha qof xanaaqaan lagu maleynaya iska ilaali waxyaa maaha ee hadda siyaasadda ka bataqaan waxay iga sheekeynaysaa in aniga hooyaday fiiri in hooyaday iyo habartay iyo abtiga iyo aabahay kaliya la cashuuro oo la dilo oo wadada laga xirto oo laado gabadha hadday foolanayso ma qaadi karta ambulance hadduu qarax dhaco dhaawacaaga lama qaadi karo ha dhinto ayaa dowladda iga dhigaysaa ma dowladda soo ma ahayn tasiilaadka tanbixis arrinta ka hadla hadal waxay ku tiri duqbilow staaji waa ka xumaanaya waana ka xanuunsanaya hooyada xanuun baan dareemayaa baa igu tiri kuwa jigjiga ku jiro iyo kuwa xamar joogo then su'aasha aniga waa kaa istaajiyey then adaa dib kugu socoli if you feel that pain oo xanuunka dareemaysid oo ogta hooyada inay dhibaato ku jirto oo waliba ku tusaale aniga adigu nolol raaxala ku jirnaa Europe iyo America joognaa wino security kanaga waa garanti kuma jiro nolol raaxala waa ku jirtaa kuma jiro nolol raaxala hooyo ubadkeeda la dilayo oo baahan yahay aabe iyo kuma jirna anaga raaxo hadda adiga ku jirto oo adiga aad mataqaanaa Starbucks ka soo qaata shaahi ka soo qaato ku enjoy garanaysa aniga kuma enjoy gareeyo aniga raaxo kuma jiro aniga victim way dadkayga dhiban dadka Soomaaliyeed dhamaynaya magaca dawladda lagu dilaya shalna Maxamed Siyaad Barra dilayay maalinta ku xigtay argagixisaa dilaysay maalina qabiil bay isku dilayeen maalina Mareykan baa ku soo duulay maalina Ethiopian baa ku soo duulay maalinta qashay ilaa hadda colaadsa ku jiray marka aniga raaxo ma dareemay ama aan Yurub joogo ama aan joogo dalkayga hal point rabana ku siiyo I understand dadka nagina dhamaanayaan I agree with you and I want in a point isla fahnani adiga waliba pointing aan ku weydiinayo waa pointing magaraysa ummadda Soomaaliyeed dhan had ay niyad iyo qalbiga u wada tageen if you feel the pain hooyada Soomaaliyeed ee xanuun ku sugan tahay maalin walba okay why you campaigning hawiyow kaca dagaal qaada dowladda dumiye ilaa dowladda waa dowlad dastuuri oo baarlamaani ah oo madaxweyne walba 4 sano loo shaqeynaa marka hooyadii xanuunkeeda aad dareemaysay dowladdii yareedee la isu keenay ee muddada 12 sano qaatay inaan ku meel gaar ka baxno adaahirow u campaign gareynaysa leedahay ree hebel dagaalka qaada kaca toosa xaqa iga waa maqan leedahay
hooyada goormay ka baxeen what time what year okay si kale dowladda walba dumishay okay si oo okay daahir hay hadda maqsad ku jawaab marka dastuurka aan qoranay ayaa wuxuu siinayaa xaquuq in ay dowladdu tahay federaal xaq wuxuu siinayaa in gobolka banaadir aan aniga ka dhisto dowlad goboleed madax bannaan sida dowlad goboleedka kale ay u soo yihiin xaq wuxuu siinayaa in cashuurta laga qaado gobolka banaadir isbitaal caafimaad waxbarasho amni biyo nadiifa intaas dadka yeelaan wuxuu xaq siinayaa xurriyatul qowl wuxuu xaq siinayaa in subaxdii marka soo baxa gurigayga aan xafiiskayga shaqo tago maasha Allah waxa xaq siinayaa waxa siinayaa taasa siinaysa marka waxa weey aniga igama sheekeynaysid ima dhahaysid marka reekismay waa tastay Puntland waa tastay Somaliland waa tastay adiga maxaa u tashanay hadda ilaa ciyaala tahay ciyaalniman anigu dhageysan karo waxa weey aniga xaq waxaan u leeyahay dastuurku wuxuu siiyay dadka waxa weey waa qabiilo waxa dawladda ay ku dhisan tahay madaxweynuhu qabiil buu matalaa ra'iisul wasaaruhu qabiil buu matalaa gobolka banaadir qabiil buu matalaa kismaayo iyo mataqaana hargeysa iyo garow qabiilay matalaan cadaada qabiil bay matashaa qabiilkeeni ayaan matalayaa qabiilkayga xaquu leeyahay cashuurta qofka laga qaado waa aniga cashuurta aan laga qaado mar raba Cabdiraxmaan Beyl inuu hargeysa ku dhisto inuu xayr maaray burca ku dhisto in boosaaso lagu dhisto in cabud waa iyo askari laga keeno oo xamar ugu dira ciyaalkayga mar raba iyo gado waxa weeye federaal weeye raal noqo waanan maasha Allah si fiican u shaqaysanay waa soo qabanayna nina garab taagan oo igu dhahay waa shaqeynay waa la socotaa nina igu yiri dhaaga galbigu yiri reer baa la qaato aad marka adiga hadda qowlafti hadda oo fa soo dagaalantay halkaas waa laga jawaab aaminsantahay mise wali ma aaminsan sida jecesha kuule ha guuleysato waana kugu taageeraa inaad wabillahi tawfiiq nabadi halkan inaad taageerto alla waxa la mingistay xidsa dhacaano ciao وايد السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.